kulan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa barteen YouTube-ka ee Xogta TV qodobada wararkeena waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Generaal Cabdalla dib ugu soo celiyay darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidannimo ee uu lahaa kadib markii uu ka qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba waxaan eegi doonaa warar iyo falanqeyn ku saabsan arrintan. maamul goboleedyada Soomaaliya oo qaatay go'aan culus oo ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya xilli maanta ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka. khilaaf culus iyo kala shaki soo kala dhexgalay maamul goboleedyada iyo villa Soomaaliya ayaan warar idinkaga hayaa iyo faahfaahino ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa. waa habeen Talaado ah Arbaca ayaa soo gelaysa 30 Agoosto 2022. haddaad nugu cusub tahay nugu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nugu xiran adigoo subscribe saaraya kanaalkeenna kadibna furo gambaleelka si wararkeenna aad u hesho. u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi. waa hagaag mar kale kulan wacan. goordhow waxaan eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Generaal Cabdalla dib ugu soo celiyay darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidannimo. hase ahaatee aan ka hormariyo war xasaasi ah. war saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa waxa ay ku joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya. maamul goboleedyada Soomaaliya ee kala ah Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay inay xiriirka u jareen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. kulan fogaan arag ah oo ay yeesheen 5 wasiir dowlad goboleed ayaa waxay ku sheegeen in aanay wax wada shaqayn ah jiri doonin inta wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ay ku soo laabanayso xayndaabka sharci iyo fulinta heshiisyadii ay horay u galeen. maamul goboleedyada ayaa ku doodaya in wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ay jabisay heshiisyadii horay loo kala saxiixday kuwaasi oo kala ahaa: 1. heshiiskii Addis Ababa ee sanadkii 2019. 2. heshiiskii Kismaayo ee September 2019. 3. heshiiskii Kampala ee December 2019. 4. heshiiskii Nairobi oo la saxiixay January 2020 iyo heshiiskii Muqdisho lagu gaaray Agoosto 2020. tan iyo markii xilka madaxweynaha dib loogu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay maamul goboleedyada bilaabeen inay dib u gurasho sameeyaan iyaga oo si adag u dhaliilay hab maamulka hoggaanka cusub ee dowladda. Xasan Sheekh wuxuu xukunka ku soo laabtay iyadoo maamul goboleedyada iyo villa Soomaaliya aysan lahayn wada shaqayn toos ah. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 5 sano ku lumiyay dagaalka maamul goboleedyada waxaana mudxileedkii uu ka dhamaaday isagoo gacanta ku haya 3 maamul goboleed, 2 maamul goboleedna ay diidan tahay xukunkiisa. madaxda maamul goboleedyada ayaa dood ka qaba hanaankii loo maareeyay qandaraaska qaadka, dhismaha xukuumadda iyo magacaabista xilalka sare ee muhiimka ah. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda mid waayi doona wada shaqaynta madaxda maamul goboleedyada xitaa 1 ama 2 dowlad goboleed marka laga shidaal qaato habka uu wax u wado. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xasan Sheekh Maxamuud kaga duwanaa in ay dowladdiisu xiriir iyo wada shaqayn wanaagsan la lahayd 3 ka mid ah maamul goboleedyada kuwaasi oo kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, halka Puntland iyo Jubbaland ay diidanaayeen. laakiin waxaa muuqata hadda in Xasan Sheekh uu xitaa 1 maamul goboleed gacanta ku haynin, taasi oo burburinaysa hal kulligiisii ahaa Soomaali heshiis ah. lama oga sida uu xaalku noqon doono saacadaha iyo maalmaha soo socda. sidee u aragtaa in 5 maamul goboleed ay xiriirka u jaraan dowladda federaalka Soomaaliya? wararkana kalena haddaan eegno, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyay sareeyo guuto Cabdalla dhammaan darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan ee uu ku lahaa hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. madaxweynaha ayaa digreetadan u cuskaday qodobada 87 iyo 90 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku saleeyay xeerkan madaxweyne sharciga dhismaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka
soona baxay sanadkii 1970. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh wuxuu qaatay go'aankan kadib markii uu codsi u soo gudbiyey sareeyo guuta cabdalle maxamed, sidoo kalena uu eegay muhiimadda ay leedahay in dib loo soo celiyo xuquuqdiisa iyo darajooyinkiisa ciidan si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada dalka. sareeyo guuta cabdalle maxamed laga bilaabo maanta oo aan saxiixay xeerkan madaxweyne waxa uu xaq u yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidan ee sharcigu uu u ogol yahay, iyadoo xeerkani uu baabi'inayo dhammaan wixii xeer ah oo ka horeeyey ayaa lagu yiri digreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. xeerkan madaxweyne ayaa dhaqangalay maanta oo ay taariikhdu tahay 30 Agoosto 2022 oo ah markii lagu baahiyey faafinta rasmiga ah ee dowladda. 15 bishan Agoosto ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidan oo kale Generaal Saadaq John dib ugu soo celiyey darajooyinkiisii ciidannimo iyo xuquuqdii uu ku lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed. labadan sarkaal waxaa horay darajooyinka uga xayuubiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana hadda dib u buriyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xukunka kala wareegay. gabagabada wararkeena ayaan daawadayaal isla joognaa. ugu dambeyn haddaan eegno, faahfaahino ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada mashquulka badan ee Maka al-Mukarrama, kaasi oo dhaliyay khasaare. qaraxa oo ka dhacay isgoyska shaqaalaha oo u dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadda ee degmada Hodan ayaa la sheegay inuu ahaa miino lagu xiray gaari ay leeyihiin ciidamada booliska, taasoo qarxday xilli uu halkaasi marayay. qaraxa waxaa inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay 2 qof, iyadoo darwalkii gaariga uu dhaawac culus ka soo gaaray, waxaana si degdeg ah mas'uuliyadda qaraxa u sheegtay kooxda Al-Shabaab oo sheegtay inay ku beegsatay ciidamada dowladda. waa qaraxii labaad ee 24 saac gudahooda ka dhaca Muqdisho, iyada oo qarax kale uu xalay ka dhacay degmada Kaaraan, kaasi oo lala beegsaday gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha siyaasadda maamulka degmada Yaaqshiid Macalin Xuseen, kaasi oo la soo wariyay inuu qaraxa ku dhintay. Allah u naxariistay marxuumka ayaa ku sugnaa xilliga la qarxinayay xaafadda Buula Maaxay oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. wararku waxay sheegayaan in marxuumka qaraxa loogu xiray gaarigiisa isla markaana uu ku dhintay isla goobta, sida ay shaaciyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Yaaqshiid. Maryan Maxamed oo ah marwada mas'uulka geeriyooday ayaa dhankeeda sheegtay in qaraxa gudoomiyaha loogu xiray gaarigiisa xilli uu ka soo baxay xaafadda, gaar ahaan gurigiisa oo ku yaala gudaha degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. waanaga intaa warkii aad ka daawanayseen Xogta TV ee nabadgelyo.